بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ومركل iyo barnaamijkeeni xog kororsi gaar ahaan qaybtiisa koobida iyo gorfeynta buugta waxay noo socday barnaamijkeeni ku faaleynay buugta kala duwan ee alaaba aan akhriyo maanta waxaan faaleyn doonaa buug la yiraahdo umniyati an aqtula rajulan hamigaygu waa inaan indilo buugga waxa qortay gabadh la yiraahdo Sucaad Sultaan Shamisi سعاد وحول الله تي دلك إمارات كعربته halkaas ay waxbarashadii asaasiga ahayd iyo dugsiidii iyo waxyaabihii kala duwan ku qaadatay jaamacadda waxay ku takhasustay garoomada maamulka diyaaradaha iyo waxyaabaha la xiriira shahaadooyin kala duwanna way ku qaadatay waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee imaaraadka ee maamusha garoonka Abu Dhabi ee ku yaala dalka Imaaraadka Carabta sidoo kale waa gabadhii ugu horeysay ee imaaraadka ee maamul diyaaradeed wax ka barata sidoo kale qabata maareeya diyaaradeed iyo garoon dhinaca kale Suldaan waa gabadh qoraaya sheekooyin kala duwan bay qortay sheekooyinka qortay waxa kamid ah sheekada la yiraahdo Zahratu Sawsan sheekadaas iyo meel kala duwan lagu baahiyay sheekada kale ay qortay waa tan hadaynu waxayna maanta buugga la yiraahdo umniyati an aqtula rajulan hamigaygu waa inaan nin dilo wuxuu ka kooban yahay 240 iyo xoogaa bug waxay qortay oo soo saartay sanadkii 2018 sanadkaasi waxa la daabacay 3 jeer oo kala duwan baa buugga la soo saaray oo la daabacay wuxuu kamid ahaa buugga kaliya ee ugu iibsiga badnaa ee yaalay bandhigii buugagta ee ka dhacay Shaariqa oo ah magaalo ku taala dalka Imaaraadka Carabta waqtigaasi uu dhacay bandhigu 3 jeer oo kala duwan baa isla sanadkaasi la daabacay si akhristayaasha xiiseynaya uu gaaro loo qanciyo buuggu wuxuu leeyahay ciwaan cajiib ah oo markaad aragto sawirkiisa iyo waxa ku cajiminaya qoraalka ku dul qoran buugga ee baalka hore markaad aragto wada dhiigagasa quruxda iyo ashqaraarka ka muuqda ya salaam si qurux badan bay gabadhu dooratay markaad eegto balse waxa ka dambeeya ayuu isteegi doonaa jildiga wixii ka dambeeya waxay ku bilaabaysaa qisooyin kala duwan buuggan wuxuu badan yahay qisooyin inta dambana xalal ay u aragto marka inay ku xalinayso qisooyinka kala duwan ee ka soo aragtay ay buugga ku tilmaamaysaa xagga hadiyinta markaad eegto waxay leedahay waxaan u hadiyeenayaa buugga qof kasta oo guursaday oo wehel yeeshay misana wehelkii ku xumaaday oo nolosha quuska jooga sidoo kale waxaan buugga u hibeenayaa qof kasta oo xaasa ama marwaa ama yacni qof kale uun la adigu oo qofkii ay isfahmi laayihiin dhexdoodana uu isfahanwaa iyo ismarwaa u dhex yaalo buugga marka waxaad moodaa in yacni uu badan yahay dhinaca hadda aynu sheegi doono ee hel xumaaday iyo wax la mid ah qoraayadu waxay ku bilaabaysaa qiso waxay leedahay markaa qisooyinkan dhammaan buuggan ku sheegay waa qisooyin qaraadh oo dhaba balse kuula muuqan doona kuwo khiyaaliya waa qaabka u dhacaya markaad eegto waa kuwaad is leedahay iyo waxbaa ku jirta qisada ay ku bilaabaysaa waxa weeye waxay leedahay waxa jirtay gabadh xaas ahayd nin bay isqabeen gabadhaas waxay lahayd ninka 4 caruur ay wada dhaleen oo ay wada lahaayeen muddada ay 4 caruur xaaska iyo gabadhiisu wada dhalayeen qaxar iyo qaylo iyo taag baa jiray laakiin jacayl badan ma jirin marka laga yimaado muddooyinkii hore markii ay iskuursanayeen toddobaadkii horeeyay iyo waxaas markaa jacayl hore jiray laakiin muddadan ay wada dhalayeen caruurta jacayl badan ma jirin leesmana jeclayn waa mid ku taagan bay ahayd gabadha ninku wuxuu adeegsadaa erayo ayna geeyin wuxuu ku yiraahdaa mararka qaar kuma baahni gabadh kale helaya gabadha badan baa jiro oo anigay doonayo adig kuma baahni maanta heli kara nin waxaan ahay laga daba dhacay nin balaayo ka qaraxday nin waxaan ahay markaa ban tuuray aduda sheekooyinka kala duwanaa ninku markaa gabadha ugu sheekaya waaya iyaduna markastoo erey yiraahdo way naxdaa niyada go'da way jabtaa yacni meel kale gashaa noloshu waxay quusbay ka istaagtaa ereyada uu isticmaalayo markaad eegto waxaad moodaa markaa kuwa jibinaya niyadeedii markastoo erey la yiraahdo waxaad moodaa in waran lagu dhufanayo oo gabadhiisii inay jabaso gabadhaasi markaa quus bay joogtaa wuxuu arkaa sidoo kale gabadh wuxuu arkaa xoolo ama yacni alaab guriga taalo go'aan gaari karin waxba qabsan karin laakiin gabadhu arrin muhiim ah u haysa ninka oo inay guriga kala hagaajiso marka halkii ahayd inuu arrintaa u arko gabadh muhiim u haysa wuxuu arkaa gabadh markaa aan wax badan u haynin oo alaab oo kala ama yacni saas oo kale ayuu ninku arkaa gabadhii markaa laba xaaladood bal soo gudboonaaday
kow ninkan inay iskaga tagto waxay ka weydii meel kale ay ka raadsato oo ay markaa nolol kale ay raadsato iyo in ay ninkan disho oo ay ka takhalusto labada xaaladood ba markaa gabadha la soo wajahay gabadha xaaladeedu markay tilmaamayso waxay tiraahdaa waxaan ahay xaaladeedu waxa weeyaan sidii qalalayntan waxba lagu qorin ama kabo cidhibta ka dhacay inta aan la xidhin iyagoo cusub ama xaaladeedu waxay la mid tahay sidii guri laga guuray oo daahidu iska raacayaan cidna ayna ku jirin xaaladeedu markay tilmaamayso gabadhaas qoys ayay joogtaa markaa xaaladda ay ku dambaynaysaan waxa weeye ninkaa inay disho arrin kale ma jirto markaa waa kow sucaad markay intaa ka timaado waxay soo qaadanaysaa qiso labaad qisada labaad waxa weeye nin iyo xaaskii way isqabaan way isjecel yihiin yani isku faraxsan yihiin muddo fara badan bay isqabaan ninkii baa markaa hunguri xumaaday iimaankii baa markaa ninkii ka xumaaday u imaan beelayo yacnihii gabadhiisii intuu ku qanci waayey buu gabdho kale raadsaday tii waa laga qariyay quruxdeedii waxyaabihii la midkaa mid kaloo dibadda ka joogto ninkii raadsaday waa iimaan xumada markaa soomaalida ku dhacdo oo kale ninkii xaaskii markuu gabadhiisii wuxuu yidhi gabadh kale markaa isjeclaadeentiibaa ku tiri aanu isguursanno haye way sheekaysteen gabadhi shardi bay ku xidhay gabadhii labaadee markaa guursay islaama shardi ku xidhay waxaa ku tiri gabadh hore aad qabtaa gabadhaa hore ilaa aad furto isma guursan karno markaad gabadhaa hore furto umad isguursan karnaa isna geyi karnaa waayo ay buu yidhi gabadhiisii xaaskii hore ku laabatay markaas ku yidhi gabadh baan guursanaya gabadhiina shardi waxay ku xidhay inaan midkiin sii daayo adigaan ku sii daynaya hooyadan jeclahay haye markaasay gabadhii tiri war maad iga diin waa lahay furina dad soo wada rafiiqaynu nahay qaab nolosha halka kusoo wada gaadhaynu nahay waarkada u diiday ninkii sidii buu goostay waraaqadii isagoo arkayuu qoray toos oo taa waraaqadii qaada ku yiri waayahay gabadhii iyadoo niyad jabsan oo depressionka iyo waayaha ku furan iyo waxyaabaha cadiyay iska socotay ninkii isma dhibin gabadhii buu iska guursaday yaraaye jeclaaye doobka ee gashaantida ahayd guri buu la galay toddobaadkii koowaad sidii baa loo wada joogay monimonkii iyo waxyaabihii markaa toddobaadkii koowaad toddobaad bixiyo sidii wanaagsan baa loo wada qaatay toddobaadkii markuu dhammaaday ayay gabadhii weji kale la soo baxday wejigii haasaha weji ka duwan wejigii monimonku wari ka duwan bay la soo baxday gabadhii way ku weji xumaatay ninkii halkaa markuu jooguu dareemay xaaskii hore markaasuu yidhi kelmad buu markaa yidhi wuxuu yidhi xaaskaygii hore waxaan dareemay inaan gabadh naxariis badan oo jecel oo ikolkolisa ay ahayd laakiin nafsi baan ka galay buu yidhi waxaan dareensanahay maanta inaan dhibanahay oo qof aan ahay markaa dambi hore uu ku jiro ninkii sidii buu markaa gabadhii ku daayay gabadhii iyadoo silicdaa loo soo sheegi jiray xaaladeeda ma dhageysan jiray wuu iska qarin jiray gabadhii ugu dambayn nin dooba oo dhalinyara ayay heshay kiibay isguursadeen noloshan ay wadaageen ninkii xaaska hore furee tan dambe qabay ku xumaatay isagoo niyadjabkii iyo xaaladii ku jira maalin maalmaha ka mid ayuu tegay xafladdii marka uu tegey ayuu arkay xaaskiisii hore egas xaaskiisii hore oo xafladda joogta nin yaroo dhalinyaro gacanta haysata deedna ay wada faraxsan waa sodaan ninkii bartii ayuu ku suuxay wuxuuna yidhi hadal xalgala markaasuu yidhi gabadhaasi quruxda ay leegtahay iyo ninka akshanka iyo qaabka ay u haysato ninkaasi gacanta yani waxaan dareensanahay maanta inaan dambiilahay nafsi weyn baa layga jirayaa caraf baan yahay marka yani wuxuu tilmaamaya markaa gabadhan siduu ugu xadgudbay gabadh miskiina oo jecel oo ay soo wada rafiiqaan siduu markaa yanihii ugu abaalka daray dhacdadaas waxay tilmaamaysaa markaa yanihii inaad kolba eegto waxaad haysato oo aanad u hanguri taagin wax kaa maqan si aanad berri ka maal oo dareemin dhacdooyinka noocaasi waxay tilmaamayaan markaa nolosha qaybo kala duwan bay markaa tilmaamayaan ciilka iyo cadhowga iyo waxyaabaha loo geysto dumarka ayaad moodaa buuggu inuu badan yahay sucaad waxay markaa sheegaysaa talooyin fara badan talooyinka waxaa ka mid a qoysku si uu sii jiro u waaro in daacad labada qof isqaba isku noqdaan labadii qof inay is aaminsan yihiin sirta ay wada qarsadaan ay si wanaagsan u wada noolaadaan dad ay yihiin markaa isku kalsoon oo aan cid kale waxba u gudbinin waa kow lambar laba labada qof inay yihiin laba istareensan muddo kale muhiimadda uu yahay iyo waxa uu hayo iyo abaalka weyn ee uu hayo waayo gabadhu abaal weyn buu ninku u hayaa oo ah inuu dibadda uga soo shaqeeyo guriga wixii lagu cunayay uu keeno gabadhuna ninka abaal weyn bay u haysaa oo ah in xaafadii ay uga shaqeynayso carruurtii oo hayso oo kala maamulayso marka labadu ma kala maarmi karaan yani midba waxaad haystaa mas-uuliyad iyo shaqo weyn oo lagu mahadnaqo aan la iska indhatiri karin qofka iska indhatiraana markaa isaga jaahila sucaad marka waxay leedahay ninku ha dareemo mas-uuliyadda ay gabadhu u leedahay iyo muhiimadda agtiisa ay ka joogto iyo waxay u hayso gabadhuna ha dareento waxay ninka markaa u hayso
takale arinta ku jirta meesha waxa weeye markaa in aanay iskhiyaamin oo khiyaamada iyo waxyaabaha la midka ah iska ilaaliyaan sidoo kale in ixtiraamkooda noolaadaan labada qof ay ixtiraam iyo wada joog waa adduun ixtiraam jirin labada qof wada noolaan karaan mana wada joogi karaan baribi is wada ka riyo markaa sanka iska qabsan oo midka kale markaa una cadali doona laakiin haddii labada qof is ixtiraamayaan ixtiraamnimo jiro labada qof waa laba qof oo isfahmi kara weyn takale waxa weeyaan ay qosucaad tilmaamayso in labada qof ay dabeecadaha isbartaan dabeecadaha kan leeyahay iyo dabeecadaha ay tan leedahay labada qof isbartaan weyn buugu marka waxaan moodaa arrimaha noocaas aynu tilmaamayo waxaan doonayaa markaa si guud inaan intaa ku soo ururiyo inaga ka Soomaali ahaan hadaynu waaqican ku dabacno arrimaha noocaas waa arrimaha aad iyo aad moodaa hadda inay aad ugu badan yihiin bulshadeena xaaska iyo yacni ninka iyo arrimaha qoyska iyo arrimahaas waa arrimaha la xiriira in oran karaan anigu waa waxyaabaha hadda ugu muhiimsan loo baahan yahay la fahmo waayo nolosheena inta uu qof guursanin ka hor waa nolol iska khiyaali weey runta lagu wada dhaqmo labada qof ee sheekaysanaya waxa laga yaabaa in ay xaaladooda mid kale wada ogeyn marka guri la wada galay labadii qof isguursadaan ee aqal ay wada galaan in xaaladii dhabta ay timaado waayo xaaladaha ugu badan hadda markaad eegto albaarsa ugu dambeeyay waxa sheegaya marka yani labada qof markay furniinka waxyaabaha keen waxa kamid ah labadii qof xaaladooda is ogaada marka dambe waayo xaaladdu haday tahay xaalad marka hore labada qof ay is ogeeyeen isku xaal u ramin waa noqonaysa marka in xaaladdu dhacdo waxaan doonayaa inaan ku soo koobo intaan buug kala mid ku kulmi doono waxaan kaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adoo suuqiyo sayla joogiyo adoo subaxii salaadaha hore sariirta hurdada siru jiifoon weli sara kicin saqda dhexe iyo duhur saafiya saacadoo idil sarif lacageedoo ku saacido oon ku siri haynsamow boodhari hayse seegina yaa salaam boodhari money exchange